waxaa barnaamijka nagala qayb galay fadiilatu sheekh maxamuud sheekh xasan aadan abu dalxa xafidahullah ka mid ah culamaa diinka magaalada Koldin وهو قني عن التعريف ولا له آدي يقانان شيخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد ولا الله الأمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود وحين عاو هالكن كوا أساسينا وكل سينا جوري كم إذا جوريها مسلمين تا قارهم كوا صوماليات محاضرات كاجي أنتي دعوة كوتشرت وحيالها وين واد أود السارتيد أو دستيد وجوريها مسلمين تكون الصوماليات مركا كلمة هذه إن شاء الله بنفوسه دوينا فضيلة الشيخ تفضل حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على رسول الله القائل تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما بعد دمان وحان سلام خاصة أسو تشيدين يا مسلمين تيدغي سنيسة قارهان وحان سلام يا أبو عائشة يا أم عائشة وعاوة مناسبتني أيقا loo qabtay ilaahina tabaaraka wa tacaala markooda waxaan ugu ducaynayaa baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykumaa wa jamaaca baynakuma bikhayr sida aan isleehay dad badan oo hadlay iyo culummo iga horraysayba inay ducada aqriyeen. haddii ay laga maarmaan noqotay inaan kelimo yar dhaho waxaan jeclahay dhowr qodob inaan ku soo koobo. qodobka koobaad arrintani waxay tahniyad u tahay oo ay farxad u tahay oo inaan la qaybsanno ka muslimiin ahaan ay waajib noogu tahay ama akhlaaq ahaan ama insaan ahaan iyo dareen ahaan ay noogu tahay intaan la gaadhin abu caaisha iyo umu caaisha. horta caaisha iyo carruurta kale ee joogta iyo kuwa dambe ee allah aan ka baryayna tabaaraka wa tacaala nikaaxan iyo guurkan cusub inuu ku keeno kuwa khayr badan. horta kuwaasaan tahniyada ka bilaabaya. ina ninba meel buu ka bilaabaaye shaki waxaan igaga jirin caawa farxaddaanu faraxsannahay inay naga farax badan tahay caaisha iyo carruurta kale haddii ay jiraan inay naga farax badan yihiin shaki ma lahan. horta ayagaan u tahniyeyna marka koowaad maxaa yeelay hooyo iyo aabbo kala maqnaa maanta inay dib iskugu soo noqdaan. cidda koowaad ee farxaysa waa awlaadii waa ilmihii waa durriyaddii horta ayaga dhexdooda yaallay. horta farxadda koowaad horta ayadaan siinaynaa, caaishaan siinaynaa iyo carruurta kaleaanu siinaynaa. ayagaana la wadaagaynaa farxadda ilaahayga mar labaad u soo celiyey ee mar labaad iskugu keenay waalidkii dhalay labadoodaba oo haddii uu mid ay haysay kii kale uu ka maqnaa. taasi waa qodobka koowaad. waxaa qodobka labaada inaan labada walaalaha ayagana aan ugu tahniyeyno waa tahniyada labaade inaan ayagana aan leenahay baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykuma axsantum. si wanaagsan baad samayseen. axsantum si fiican baad samayseen. juziitum khayran cana wa cani lmuslimiin. ilaahayna abaal ha idinka siiya tabaaraka wa tacaala. kelimaadka soo socdaan ku tilmaami doonaaye waxaan tahniyada mar kale saddexaad siinayaa qaraabadii iyo qoyskii walwalki iyo walbahaarku kala galay abti iyo seedi iyo sadoq inay mar labaad isku soo noqdeen oo mar labaad ayaga sababkooda ku soo laabanayaan. ayadana waxaan leenahay waa bulshada qayb ka mid ah oo mar labaad isku soo noqotay. muslimiinta cumuuman ficilka noocan oo kale ah tahniyada ugu dambaysa oon qaabka tahniyada u dhammaynaya waxaa weeye
غرفة بنات المحصنات بان ايضا ugu tahriinaynaa oo arrintan ayada ay ka dhacday waa arrin khaas ah aragtideeda goonida ana iyo fiiradeeda goonida ana u baahan in la siiyo ayadana waxaan leenahay sharaf bay u tahay qolka banaat almuxsanaat inay arrintan oo kale ay ka dhacdo haddaan intaa tahniyada aan kaga soo tago waxaan leeyahay arrintani waxay fursad u tahay ama fursad ay siinaysaa dadka labadaas walaalaha oo kale ah oo hore isu furay waxaan warqad u dirayaa marka laba qof oo kastoo hore u kala tagtay oo weli banaanka kala taagan oo gabadhina ayna weli waxba guursanin xataa hadduu doono ninkii waxa guursade waxaan leeyahay fursadani fursad bay u tahay fursadan oo kale ka faa'iidaysta waxaa laga yaabaa inaad idinka wax isu kiindhaamada inuusan jirin waxaa laga yaabaa inaad idinku isku fiicantiin waxaa laga yaabaa inaad shaytaan intuu kuu sheekeeyo ood horey u socoto inaad dhahdo warkii yaa ii soo celiya oo uu dhaho war gabadhii u yaa ii soo celiya ammaantiinu ay kala dhammaan kari weydo idan arrintaa waxaan leeyahay fursad waxay u tahay dadka banaanka kala taagan ee isfuray fursad bay u tahay baan leh labo qodobka labaad kale waxaan leeyahay labadan walaalaha ah ee guurkooda caawa cusub yahay ee mar laba isku soo laabtay waxaan leenahay ka faa'iidaysta akhtaadii hore ee idinkala geystay ka faa'iidaysta gafafkii hore idinkala geeyey duruus ka qaata wixii horey u dhacay yaynan soo noqonin qaacidadan qabsada dikru ljafaa bacda asafaa jafaa dikru ljafaa bacda asafaa jafaa wixii la soo dhaafay qofka soo faaga kaasaa goynta wada idan ka faa'iidaysta dariiqii hore ee dhumitaanka keenay waa in dariiq aan ahayn in la qaado waa muhiim ayadana sida oo kale waxaan leeyahay waxay arrintani targhiim u tahay arrintani waxay sambooreyn u tahay shaytaanka waxaan leeyahay caawa shaytaan baa laga adkaaday shaytaanku soo kumuusa farxin jirin inuu qofku intuu badda bartankeeda dhigto oo ciidankiisa kala diro soo jaa'izada weyn ma uusan siin jirin ninka reer soo dumiya idan ayadana waxaan leenahay caawa godkiisay biyo ugu galeen idan waxaan leenahay guurkanaad mar labaad samayseen waa targhiiman lishaytaan shaytaanka ayaa sanka ciid kaga shubteen intaa keliya miyaa cid kasta oo dumitaankiina ku faraxday cid kasta oo inaad kala tagtaan ka qayb qaadatay ama deris ha noqdeen ama qaraabo ha noqdeen ama saaxiibo ha noqdeen ama gaalo ha noqdeen cid kasta oo reerka inuu duma lug oo ku lahaydna caawa sankaad ciid kaga shubteen waxaad farax geliseen muslimiinta iyo mu'miniinta iyo muttaqiinta awalna waxaa ka horeeya allah tabaaraka wa tacaala wanaag badan oo samayseen inuu raalli ka yahay baan rajaynaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala hadalka yaanan dheeraynin culammadana aan fursooyinka aan siiyo waxaan leeyahay dadaalkiina halkaa ka sii wada wixii horay u dhacayna horay ha looga gudbo cashir iyo duruus ha idiin noqoto aroos cusub iyo qosol cusub iyo qalbi wanaagsan iyo isa soo dhoweyn wanaagsan iyo sabar wanaagsan iyo isu dulqaadasho wanaagsan iyo isbarasho horle iyo tanaasul iyo intaasoo dhanba waa laydinka doonayaa in aad ku dhaqdaan reerkiina iyo naftiina fa as'alu allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan u weydiinayaa reerkaasi inuu barakeeyo oo allah tabaaraka wa tacaala ayaga isu macaaneeyo oo ayaga istuso oo mid walba midka kale indhihiisa tuso oo mid walba midka kale dhaguhu wax ku maqlaa ka dhigo oo mid walba midka kale gacantiisa ooga dhigo gacanta ugu raaxa badnayd jidhkana ooga dhigo jidhka ugu caraf badnaa cuntadana uu ooga dhigo cuntadii ugu macaanayd gobashana uu uga dhigo gobasha ugu raaxaga badnayd meel yani uu dareemo jannatu dunyaa labadooda iska dareemaan mar alla markay isha isku dhuftaanba inuu midka kale midka kale u sawirto xuurulciintii adduunyada zawja saalixa waa xuurulciin zawj saalixana waa xuurulciin ilaahay taasaan u weydiinayaa miisaan lagu daydo meel walbay joogaanna ilaahay inuu ka dhigo tabaaraka wa tacaala intaas ayuu ilaahay ii qoray ina waafajiyey inaan dhaho wixii aan asiibayna ilaahay baa ku mahadsan wixii aan gafayna fa astakfirullah
waxaan mar kale leeyahay baaraka allahu lakuma وبارك عليكما وجمع بينكما بخير والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، جزاك الله خير. جزاك الشيخ محمود الشيخ حسن أبو ضلحة على هذه الكلمة القيمة. الله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك وصاره